السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياش هذا قيمة يقدرين تمدني هذا سيد توسكا نوغاد هانيساي قلبنا أكثر ميل والبود دافع عالم كاكس جوكتان كنا سود وهذا وركي لان تافكا سومالي تلفزيون كاقرنكا أو ست توصيدين كجيمنا يستوديها ديسابا وحنا يدين ورمية أنا جو حمدي محمود دولة إثيوبيا يا شيكتي إننا مرنا بأوه جان سمينين هشيس أما شرعي حدد يرد ما يستركا مشروع وين بيحرنكا وبيجا باي محمود يا فافاهنا يا دولة إثيوبيا ayaa sheegtay inaanay marnaba aanay saxaynin heshiis xadidaya in ay Ethiopia isticmaasho biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia waxaana haddaba uu magaalada Kinshasa uga furmay shir wada tashi ah oo isla markaasina laga wada hadlayo oo hogaaminayso ururka midowga Afrika oo uga qabsoomay magaalada Kinshasa arintaasi furitaankii hadalkii ku soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia mudane Damaqa Makonnen ayaa sheegay in shirkani ay hogaaminayso isla markaasina ay ku dhexdhexaadinayso midowga Afrika ee uga socda saddexda dal waxa Ethiopia ay sheegtay in ay ka wada hadli doonaan hab waafaqsan isla markaasina meelmarinta heshiisyadii imika ka hor soo bilaabmay ee ka dhaxeeyay saddexda dal gaar ahaan dhinaca dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia balse waxa uu sheegay in aanay marnaba dawladda Ethiopia aanay aqbalaynin heshiis xadidaya in ay xuquuqdeeda ay ku isticmaali karto dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia ka hor imanaya waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in sidoo kale Ethiopia ay tixgelinayso sharciyada heer caalami ee isla markaasina dhinaca wadamada la wadaaga wabiga kheyraadka Abay sidii ay si cadaalad ah uga faa'iideysan lahaayeen sharcigaasina ay tixgelinayso balse sharci xadidaya inaanay dhisanin dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia aanay u hoggaamsamaynin mar walbana Ethiopia ay u hoggaamsamayso sharciga iyo waliba dhexdhexaadinta uu midowga Afrika u soo bandhigayo sidii heshiis lagu wada gaari lahaa balse Suudaan iyo Masar may ogolaanin waxay damceen in ay ku soo daraan qodobo kala duwan oo isla markaasina ay ku soo kordhinayaan arintaasi waxay noqotay mid aanay dawladda Ethiopia aanay ogolaaninin guud ahaan shirkaasi wada tashiga ahaa waxa uu ahaa mid laga soo saaray oo Ethiopia mowqifkeeda kaga hadashay in aanay marnaba joojinaynin dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia balse si wada hadal ah iyo gorgortan ah oo si cadaalad ah looga wada faa'iideysan karayo wada hadaladii hore ee imika ka hor dhexdhexaadinta iyo waliba sidii si cadaalad ah looga faa'iideysan lahaa kheyraadka wabiga Abay hab waafaqsan ay wada hadal ula yeelanayso dhinaca kale warbixinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia waxay tilmaamaysaa in dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia buuxintiisii ay socoto muddo gaabanna qaybaha kala duwan ee buuxinta dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Ethiopia la buuxinayo dhinaca kale gudoomiyaha midowga Afrika ee waqti xadirkan isla markaasina ahna madaxweynaha dalka Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ayaa ammaan weyn u soo jeediyay sida weyn ee dawladda Ethiopia ay waanwaanta ugu soo fadhiisatay ee habka cadaaladda iyo sharciga waafaqsan ay wada hadalka diyaarka ugu noqotay ayaanu ammaan weyn u soo jeediyay wasaaradda waraabka tamarta iyo biyaha ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkan Ethiopia ayaa soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso wada hadaladii saddex geesoodka ahaa ee ku saabsanaa arrimaha dhismaha biyo-xidheenka webiga Abay wasaaradda waraabka tamarta iyo biyaha ee dalkan Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in wada hadaladii saddex geesoodka ahaa ee hadda ka hor ay yeelan jireen wasiirada arrimaha dibadda iyo kuwa biyaha ee saddexda dal in ay wadamada Suudaan iyo Masar ay la yimaadeen su'aalo iyo sidoo kale arrimo cusub kuwaasi oo hakad geliyay isla markaana meesha ka saaray gorgortankii iyo wada hadaladii lagu gaari lahaa heshiiska arrimahaasi gaar ahaan wadamada Suudaan iyo Masar waxa ay dalbadeen in si cad ay arrintan u soo farageliyaan wadamada iyo xubnihii dhexdhexaadin jiray arrintani dawladda Ethiopia ayaa waxa uu mowqifkeedu yahay isla markaana ku aadan yahay in arrintan dhexdhexaadinteeda ay soo faragelin karaan kaliya midowga Afrika وهاجاك داوديال ولي waxaad daawaneysaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka inkastoo la bilaabay diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixinta ee lagaga qayb galayo doorashada lixaad ee qaran ee dhawaantan dalka ka qabsoomi doonta ayaa waxa la sheegay inayna u soconin sidii loogu talagalay telefishinka ETV oo arintani soo indheeyay ayaa waxa ay arkeen inay aad u yar yihiin dadka qaadanaya kaarka codbixinta ee lagaga qayb galayo doorashada lixaad ee qaran ee dhawaantan dalka ka dhici doonta waxa xusid mudan in ay muddo toddobaad ah socoto
qaadashada diiwaangelinta kaarka codbixinta waxaana muuqata in ay tirada dadka qaadanaya kaarka codbixinta ay aad u yar tahay. waxaa magaalada Asoosa ee caasimadda dowlad deegaaneedka Benishanguul Gumuz ka socda howlaha diiwaangelinta kaarka codbixinta ay qaadanayaan codbixiyayaashu iyo magaalooyinka kale ee deegaankaasi marka laga reebo goobaha ay ka jiraan xaaladda amni darro ee deegaankaasi goobo ka mid ah sida uu ku waramayo waryahayga Nimcaan Cusmaan. kuwani waa qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Asoosa ee caasimadda u ah dowlad deegaanka Benishanguul waxay isku diiwaangelinayaan doorashada lixaad ee dhawaan ka dhici doonta dalka marka la gaaro 28 bisha Gimbood. ምርጫ እስኪቀርብ ያው በጣም ነበር የጓጓሁት። Kamal Al-Bahid waa mid ka mid ah dadweynaha qaadanaya kaarka codbixinta waxa uu ETV u sheegay in uu ku faraxsan yahay isla markaana uu rajaynayo inuu codkiisa siiyo cidda ugu habboon. ወይም ደግሞ እኛ ያጣነው ወይም ደግሞ የምርጫ ካርዱ waxaan qaatay kaarka codbixinta waxaanan u adeegsan doonaa wax kasta oo anfacaya. madaxa goob doorashada magaalada Asoosa Habtaamo Tasfaye ayaa waxa uu ka warramay adeegyada ay goobtani bixiso waxaana uu sheegay in adeega goobtani uu soconayo sidii loogu talagalay. mas-uulka ayaa tilmaamay in ilaa iyo hadda ay isdiiwaangeliyeen 500 oo raga iyo 200 oo haween ah. geestiisana madaxa golaha doorashooyinka u qaabilsan dowlad deegaanka Benishanguul ayaa tilmaamay in 360 goobood loogu talagalay in laga bixiyo kaarka codbixinta marka laga reebo goobaha ay ka jirto xasilooni darrada sida gobolka Matakel. mas-uulka ayaa sheegay in goobahaasi laga bixin doono kaarka codbixinta xilliga loogu talagalay. waxaa maalinta berri ah si rasmi ah u bilaabi doonta ololaha doorashada lixaad ee heer qaran ay ku soo bandhigayaan dhinaca warbaahinta xisbiyada siyaasadeed ee u tartami doona doorashada lixaad ee dalka ka qabsoomi doonta. waxaa shaaca laga qaadayaa jadwalka xisbiyada siyaasadeed ay shacabka ugu soo bandhigayaan ololahooda doorashada gaar ahaan dhinaca warbaahinta. waxaa socda kulan lagu shaacinaya arrintaasi oo ay soo agaasimeen golaha doorashooyinka ee qaranka iyo sidoo kale wakaaladda warbaahinta ee dalkan Itoobiya. sidaa daraadeed laga bilaabo maalinta berriha oo ay ku beegan tahay 30 bisha Magaabiid ilaa iyo 23 bisha soo socotay Gumbood waxay xisbiyada siyaasadeed ee dalku ololahooda doorasho si bilaa lacag ah ay ugu soo bandhigayaan dhaqdhaqaaqyada iyo ololaha doorashada dhinaca warbaahinta iyagoo ku dhaqmaya jadwalka la soo saaray. وهاجاك داوديال ولي waxaa si toos ah u daawanaysaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka. xisbiyada siyaasadeed ee ku loolamaya doorashada lixaad ee dalkan Itoobiya dhawaan dalka ka qabsoomi doonta ayaa waxay sheegeen inay si habsami leh u socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo diyaar garowga doorashada. mar kale wariyahayga Nimcaan Cusmaan. dhawaanihii ugu dambeeyay waxaa soo baxaya cabashooyin iyo weydiimo ka soo yeedhaya xisbiyada ku loolami doona doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa dhawaan kuwaasi oo sheegaya in ay jiraan waxyaabo badan oo sixid u baahan ka hor inta aan la gaarin doorashada. xisbiyada ay ka mid yihiin Baldaras iyo xisbiga shacabka Canfarta ayaa ka warramay sida ay u socdaan diyaar garowgooda doorashadu. Getane Mulgeta waa madaxa arrimaha siyaasadda u qaabilsan xisbiga Baldaras waxa uu sheegay in goodi socodka u diyaar garowga doorashada ee xisbigoodu uu si wanaagsan u socdo. ሌላው ማኒፌስቶ ደግሞ አዘጋጅተን ለህዝባችን ይፋ አድርገን መድረክ ሰመራ ላይ አዘጋጅተን ያቀረብንበትና geesteedana Roobha Murha oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga shacabka Canfarta ayaa waxa ay tilmaantay in xisbigoodu uu diyaariyay dhammaan dokumentiyada lagama maarmaanka ee loo baahan yahay diiwaangelinta musharaxiinta iyo sidoo kale soo bandhigidda barnaamijkooda siyaasadeed ee xisbigaasi kaasi oo ay la wadaageen taageerayaasha isla markaana ay dood cilmiyeedyo ku qabteen magaalada Samara. xisbiyada qaarkood ayaa haddaba waxay dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan goobo ay ka jiraan xasilooni darro. xisbiga Boro waxa uu ku guda jiraa sidii olole uga sameyn lahaa gobolka Matakel inkastoo ay xasilooni darro goobahaasi ka jirto. gudoomiyaha xisbiga Dr. Mabrato Alamu ayaa tilmaamay in caqabado ay kala kulmeen gudbinta barnaamijkooda siyaasadeed. waxa uu sheegay in xasilooni darrada ka jirta goobahaasi aan xalkeeda kaliya looga fadhiyin dowladda. geestiisana Daahir Maxamed oo ah madaxa xiriirka dadweynaha u qaabilsan xisbiga dhaqdhaqaaqa Amxarada ayaa sheegay in si kastoo ay caqabado u jiraan haddana uu xisbigu bilaabay diyaar garowga hordhaca ah. አሁን ያለው ሀገራዊ ሁኔታ
ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga barwaaqo ayaa waxa ay sheegayaan in ay ka shaqaynayaan sidii doorashadu ay u qabsoomi lahayd jawi aad u nabdoon. si kastaba ha ahaatee xisbiyada ayaa waxa ay ku baaqeen in cid kasta looga baahan yahay inay ka soo baxaan waajibaadka kaga aadan habsami u qabsoomidda doorashada. dhalinyarada ka qalin jabisay kuliyadda farsamadaha iyo xirfadaha ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa waxa la sheegay inay wax weyn ka bedeleen bilicda magaalada Dhagaxbuur. Wariyahayga Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan ka diyaariyay. maamulka magaalada Dhagaxbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga ah uu u socdo horumarkoodu gaar ahaan isbedelka kadib waxaana deegaanka ka hana qaaday gaar ahaan fursadaha shaqooyinka ee lagu ballaarinayo. haddaba magaalada Dhagaxbuur waxay ka mid tahay magaalada sida firfircoon fursadaha shaqooyinka ugu ballaadhisay dhalinyarada gaar ahaan ardayda wax ka soo baratay ama ka soo qalin jabisay kuliyadda TVET-ka ee kuliyadda farsamada iyo waxbarashada ee maamulka magaalada Dhagaxbuur oo fursado shaqooyin in ay ka helaan magaaladii ay ku barteen isla kuliyaddii iyagoo ka soo qalin jabiyay ay isla magaaladoodii fursad shaqo ay ka helaan oo imika ka hor arrintaasi aanay dhici jirin. qaar ka mid ah shacabka ka faa'iidaystay leydgelintaasi ayaa sheegaya in dhibaatadii imika ka hor jirtay iyo faa'iidada uu leydhkani ku soo kordhiyey ee magaalada la geliyey ee quruxda magaaladana wax weyn ka bedelay. marka meheradani aad bay leedhka magaalada bilicda aad bay wallahi si fiican ugu tartay marka waxtarkaasi iftiin aan awal aan qabin ban hadda yeelanay marka wax soo saarka iyagu iftiinkan uu noo keenay aad bay bulshada ugu farax madow bay nagu hayd hadda inta ka horreysay hadda leedhka aan loo xidhin hadda kor socodka leedhku dinuqaha aad bay noogu yaray iftiinku laakiin hadda aad buu noogu fiican yahay maasha may leedhkan ma lahaan jirin markii hore madow buu ahaa xabad ku xiran meherada hortooda mooyee leydhkan iftiinka ah tiirarka ma lahayn markii hore laakiin hadda markii lagu xidhay de magaalada wadooda oo dhan baa iftiisa meherada hortoodii mooyaane laakiin dhammaanba suuqii oo dhan wuxuu noqonayaa iftiin iyo qurux oo u soo birtay magaalada iyo kalarka leydhka isagana casaan ah marka waxay isku aad bay qurxinaysaa bilicda aad bay kor ugu soo qaatay magaalada. isbedelka kadib deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Jarar waxaa soo kordhay fursadaha shaqooyinka ee loo abuurayo dhalinyarada. haddaba maamulka magaalada Dhagaxbuur oo aad arkaysaan bilicdaasi iyo quruxdaasi ay leedahay waxaa suurtageliyay oo door weyn ka qaatay fursadaha shaqo abuurka ee maamulka magaalada Dhagaxbuur u suurtageliyay dhalinyarada gaar ahaan ardayda ka qalin jabisay kuliyadda TVET-ka ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ama kuliyadda farsamada ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ardayda ka qalin jabisay xirfadda hal abuurka ee ay la yimaadeen ayay ku horseeday in ay bilicda magaalada wax weyn kaga bedelaan gaar ahaan dhinaca qurxinta bilicda magaalada ee dhinaca leydhka iyo iftiinkaasi aad arkaysaan. waxaan kamid ahay qowlaha jaajada qowlaha toolajka magacayga xasan ibrahim aadan baldhaa waxaan kamid ahay bijaaska ka shaqeeya qowlaha toddobaad astaankiisana uu yahay halkan waxa weeye laba ilaahay sameeyo ma aha hadda waxa weeyaan bulshadan أول هرم أنا هنا جري بين الله وقت كنا ما نجكسو قاري جري إيه وحلا يا إلا كوي تونات كوي تونسع نقش قيم ماشي أبي تونك ما يمكن هالكم بس عشان أنت عليك بقش قيم بحاول لكن فائدة النولي هذا ما نشوفني ده نقدر نقوله تذكر ما عندنا بتجازيني جواني إيه بحاول المدة يفتين إلى هاي ما وصل يقول واحد أنا سافرين ليه الحمد لله والله kusimaha maayirka magaalada Dhagaxbuur Abdullaahi Maxamed Xasan oo aan waraysi la yeeranay ayaa nooga xog hormaya guud ahaan geedi socodka shaqo abuurka ah ee ka jira maamulka magaalada Dhagaxbuur. وهاجاك داوديال هاتنا ورركا عالمكا دولة السودان ayaa waxay xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Darfur sida uu shaaciyay golaha amniga iyo difaaca qaranka ee dalkaasi Suudaan waxa xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolkaasi Darfur kadib markii ay ka dhaceen goobtaasi rabshado sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Suudaan rabshadahaasi ayaa waxa ku dhintay 56 qof halka ay ku dhaawacmeen 76 kale isku dhacyada goobahaasi ka dhacay ayaa ka bilowday kadib markii ciidanka nabad sugidda qaramada midoobay ee ku sugan aagaasi iyo gobolkaasi Darfur ay weeraro ku qaadeen ilaalidooda waxa kale oo hirgelinta sidoo kale waxaan la hirgelin heshiiskii la rabay in la dhex dhigo dowladda Suudaan iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee aagaasi ka dhaqdhaqaaqa